booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay ninkii dilay ciyaaryahan ka tirsanaa xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya oo shalay lagu toogtay agagaarka isgoyska number 4 ee magaalada Muqdisho. ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa saldhigga degmada Hodan ee gobolka Banaadir ku soo xiray Shariif Maxamed Axmed oo ku eedeysan inuu dilay marxuum Cabdifataax Ismaan Carab oo ahaa ciyaaryahan horay qaranka u soo ciyaaray. taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Cornel Macalin Mahdi oo shaaciyay qabashada eedeysanaha ayaa ballan qaaday in la horgeyn doono maxkamadda awoodda u leh ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay ciidanka booliska Soomaaliyeed. dhanka kale marxuum Cabdifataax Carab ayaa u geeriyooday rasaas uu ku furay nin sida la sheegay ka tirsanaa ilaalada hotel ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir. sidoo kale dad goobjoogayaal ayaa sheegay in marxuumka isla goobta uu ku geeriyooday kadib markii rasaasta ay ka haleeshay qaybaha sare ee jirka. dilka marxuumka ayaana si weyn uga naxay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sidoo kale bahda sportiska gaar ahaan kubadda cagta oo muddo badan uu ku dhex jiray.